يا مسلمين يا ولالي يا طلي أران كلام ما يستويلكي هو مقني هاي إنه إلهي الدنيا آخرة بكل بنيو ويل كان صور كيس أدو جديد يا إيجا مكان إن إيش جريسان أبتين الدنيا أبت آخرة إن إلهي إن أستره ويل كي إيش جريسان أو إلهي السماء يكون أصنعيا لا ما يدوينا الصوماليات يو ما عرفت هذا يو مسلمين تدمان كان سلام يا سلام كدب wiil ani aan dhalay ba iga maqan in badan waan raadiyay markii ugu dambeysayna gaalka ay controlka maarteeda kan hubiyo inuu tagay baa la ii sheegay marka wiilkii ilaa hadda ina controlkaas mar tagay bis mooyaane war kale ma hayo meel kasta waan maray waan ku qarash balay gaari baan waxaan soo maray maarteeda baash la yiraahdo bandiriley baan soo maray waxaan soo maray Gelensoor waxaan soo maray Adaado waxaan soo maray Dhuusamareeb intaaba gaari baan soo ingeerinay mar kastaba gaari baan soo ingeerinay hadda waxaan ku suganahay Gurceel waan ku suganahay taliya saldhiga controlkii baan sawirka geynay ilaa hadda war ma hayno dawladda sharafta leh iyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo muslimiinta dhan waxa ka codsanaya wiilkayga waa 14 jir 2009 bishii lixaad buu dhashay hooyis waa rajay hooyis way dhimatay kaligiisana ii dhashay wiilka waxbarashiisna aad baa u fiicnaa quraanka 3 jeer buu dhameeyay wiilkaas iga maqan sawirkiisna waad arki doontaan waan ku qarash beelo qarashna wuu iga dhamaaday meel aan galin malaha aruurtiga dambeysana waa qarash la'aan bay iga tahay aabba Soomaaliyeed aad u dhibaataysan baan ahay wiilkaygana wuu maqan yahay qarash ku raadina ma hayo tol iyo gargaar kale tan uma helin aad baa u dhibaataysanahay wiilkan diri nolol meel kuma sheegi karo oo isigoo nolol iyo geeri mid aan ku ogaanina xaafadda inta ku laabto oo ma seexan karo inta cuno abo ma seexan karo walbahaar baa yahay ummadda Soomaaliyeed muslimka dhamaantii waxa ka codsanaya wiilkayga inay ila baad goobaan kidibna kii qarash igu taageeri karo oo ku raadsan karana ina ma artay halka ma artay igu caawiyo kii arkana isoo caawiyo ee qabto intaas codsanaya dadweynaha Soomaaliyeed iyo islaamka guud dhan walaalayaal hadda Gurceel baan ku suganahay nimanka idaacada ka shaqeynay aad ba ma aragtay ila shaqeeyeen oo ma artay ya xasan falen waxay ka codsanayaan Soomaaliyeed yaa muslimay wiilkayga meel uu ku jiraba alla idii aragtay inaad ma aragtay si degdeg ah oo ma aragtay gurmad lagu sameeyo hadda laga joogo way inta yartaan haystay nin iska Himaaliya baan hay gaari raac iyo rafaad iyo bay iga dhamaadeen toli iyo arin iyo muslimba waxa muslimiinta ka heen oo tolag maanta ma haysto wiilkayga qarash hadda ku raadin ay tahay qarash ku raadin haday tahay haday gargaar oo ma artay il raadin tahayba ummadda Soomaaliyeed muslimiinta ka codsanaya inay wiilkayga ma artay aniga ku rafaaday oo hooyis isigoo yar baa iga dhimatay hadda quraanka 3 jeer buu dhameeyay waan hurdi lahay galaas biyo ma abi karo xaafadayda waan ka soo tagay wiilkaas ba aad ma artay u dhibaataysanahay waxay ka codsanaya wiilkayga inay ila raasaan muslimiinta dhamaantooda dhan intaasan ka codsanaya waxa laga soo xiriiraya numberka hormuud waxa weeyana furo 3 10 7 7 9 7 waan ku celinayaa furo 3 oo hormuud ah furo 3 10 7 7 9 7 goolisna waxa weeyaan numberka gooliska ana waa furaha waa 5 9 9 58 56 dadweynaha Soomaaliyeed iyo muslimiinta dhamaantood waxaan ka codsanayaa garab iyo gargaar iyo islaamnimo waan kaga baahanahay maanta wiilkayga ma harsan karo ma fadhin karo una ii mid degayso intaas aan ka codsanayaa waxay ka codsanayaa muslimiin ya walaalay ya tolay arran kala ma istu wiilkaygu wuu maqan yahay inuu ilaahay adduunyo aakhiraba ku liibanayo wiilkan sawirkiisa aad u jeedid yaa iga maqan inaad ii sheer garaysaan أبتين الدنيا أبتي أقرب إنا إلهي إن أستره ويل كي يشتغل رسالة أو إلهي سامين كأصنايا
oo meel fog ii gaarsan dal dibadii gaarsiisan